qaybtii hore waxaad ku daawateen taariikhda dhalashada waxbarashada iyo siduu halganka ugu soo biray cali xasan salaamah. waxaad kale ood ku daawateen dagaalkii dhex maray ururka PLO ama xorriyinta reer Falastiin iyo boqorka Jordan iyo sida kooxda Falastiiniyiinta looga saaray dalka Jordan. sida ra'iisul wasaaraha dalka Jordan Wasfi Al-Tal magaalada Qaahira ay ugu dileen ururka Fatah xilli uu halkaasi ka socday wadahadal la doonayay in PLO looga saaro magaalooyinka Jordan dibna loogu celiyo xadka Falastiin iyo Jordan. niyadjabkii ururka xorriyinta reer Falastiin iyo sidii 1972 ugu guureen Lubnaan oo ay isbahaysi ula noqdeen dhaqaaqa wadaniga ee Lubnaan. weerar lagu magac daray Sebtembartii Madoobay ee koox hubeysan oo ka tirsan Falastiiniyiinta ee ku qaaday tuulada ciyaaraha Olimbikada ee Jarmalka iyadoo halkaa lagu dilay 12 ciyaaryahan oo Israa'iiliyiin ah. sida Fatah uga qabsatay sheegashada weerarka iyo sida Israa'iil ay farta ugu fiiqday cali xasan salaamah inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarka. qaybta labaad waxaad ku daawan doontaan ugaarsiga Israa'iil oo halkii ka socday iyo fashilka Israa'iil ka raacay mid ka mid ah howlgallada ay ku doonaysay inay ku disho cali xasan salaamah. fashilka howlgalkaas oo keenay in Israa'iil aysan sidii hore wax dhaqdhaqaaq ah uga samayn karin Yurub. noloshii Lubnaan ee cali xasan salaamah, guurkiisa gabadha ugu quruxda badneed caalamka, xiriirkiisa Mareykanka, weerarka Israa'iil ee xarumaha PLO ee Lubnaan, dagaalka sokeeye ee Lubnaan iyo dhanka ururka PLO la saftay, xiriirkii cali xasan salaamah qaabkii uu ku yimid, iyo sida Israa'iil ugu xumaatay xiriirka Mareykanka iyo cali xasan salaamah una soo afjartay si degdeg ah. inta aan la dilin cali xasan salaamah ma helay fariimo ku saabsan in la dilayo maqaatii wax taxadar ah oo dheeri ah. warqad loo soo diray ee gaariga dhexdiisa oo ku furay maxaa ku qornaa. ugu dambeyntii qaabkii ayaa loo fuliyay dilkiisii. intaasii ka badanba waxaad ku daawan doontaan qaybta labaad ee ugaarsiga Israa'iil ee Ameerikii Casa. ku soo dhawaada. mar dambe kooxdan waxay la timid astaamo gaar ah iyo habab howlgal oo ka duwan kuwii hore, taas oo is leedahay markaad dib u eegtid wixii Jordan ka dhacay waxba ma ahayn. howlgalkii ugu caansanaa ee ururkan waxa uu ahaa kii Munich intii ay socdeen ciyaaraha Olimbikada 1972. wixii loo soo gaaray Sebtembar 1972 cali xasan salaamah waxa uu ahaa madaxa amniga kooxda Fatah iyo isku dubaridii guud ee howlgalka Sebtembartii Madoobay. ma uusan joogin Munich iyo halka howlgalku ku dhacay, laakiin waxaa suurtagal ah inuu ku lug lahaa maadaama uu ahaa madaxa amniga ee ururka. fikradda ka dambeysay howlgalka Munich ayaa ahayd ka falcelin looga soo horjeeday in Falastiiniyiinta laga reebay ciyaaraha Olimbikada ee Munich, Israa'iilna kaligeed loo oggolaaday inay ka qayb qaadato. ujeedka kale ee laga lahaa ayaa ahaa in caalamka lagu soo jeediyo qadiyadda Falastiiniyiinta iyo arrinta maxaabiista ku jirta xabsiyada Israa'iil. hadafka ma ahayn in wax la dilo ee wuxuu ahaa in maxaabiis loo qabsado madax furasho ahaan laguna beddesho maxaabiis kale oo Falastiiniyiin ah. marka laga fiirsho dhanka Israa'iil, maxaabiista u xiran ma ahayn maxaabiis siyaasadeed ee waxay u arkaysay argagixiso. qaarkood waxaa lagu qabtay howlgallo iyaga oo hubeysan. marka la eego aragtida shacabka Israa'iil iyo tan hogaamiyaasha, ma jirto sabab maxaabiis loogu beddesho kuwa Israa'iil u xiran. madaxii howlgalka Munich waxa uu ahaa injineer wax ku bartay Jarmalka. waxa uu qayb ka ahaa dhismaha tuulada ciyaaraha Olimbikada ee Munich. ka injineer ahaan waxa uu hayay wax kasta oo ku saabsan tuulada ciyaaraha. markii uu weerarka qorsheynayay waxa uu joogay xero ku taala Liibiya isaga iyo kooxda weerarka fulisay. waxay ku wargeliyeen hogaankii iyaga oo loo oggolaaday inay fuliyaan. dad badan ayaa ka qayb qaatay iyaga oo aan haynin dhammaan xogta weerarka. kuwa waxay qaybisanayeen baasaboorada iyo fiisaha, qaar kalena hubka ayay keeneen Jarmalka. Falastiiniyiinta ayaa si qarsoodi hubka iyo xubno ka tirsan fadaayiinta Fatah ku geeyay Jarmalka. waxay weerar ku qaadeen ciyaartoyda Israa'iiliyiinta ee ku sugnaa tuulada ciyaaraha Olimbikada, iyagoo qaar dilay, qaarna u qabsaday afduub ahaan, una ka haystay garoon milatari Yugoslav. waxaad helaysaan diyaarada aad Masar ugu wadataan inta soo hartay ciyaartoyda Israa'iiliyiinta ee u afduubnaa. ciidanka Jarmalka oo aan lahayn waayo-aragnimo la xiriirta arrimahan ayaa isku dayay inay si kasta ugu joojiyaan inaan lala baxsan maxaabiista. kooxda hubeysnada ee Black September ayaa tuulada ciyaaraha ku dishay 2 ciyaaryahan oo Israa'iiliyiin ah, iyagoo afduubtay 9 kale oo Israa'iiliyiin ah. waxay rabeen iyaga oo wata ciyaartoyda inay ka dhoofaan Jarmalka, laakiin dowladda Jarmalka ayaa qorshaysay inay diyaarad qumaati u kaca ama helikobtar ku fashiliso baxsashadooda. waa markii ugu horreysay ee Israa'iil ay wada xajood la furto Falastiiniyiinta iyagoo u sii maraya gacan saddexaad. Golda Meir oo waqtiga ahayd ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegtay inaysan la xaajoon doonin Falastiiniyiinta iyadoo mas'uuliyadda wada xajoodka dusha u saartay Jarmalka, iyadoo tiri waa inay iyagu la hadlaan.
inkasta oo Jarmalka uu yimid Golda kuna dhaheen waxaan wadnaa magacyadan oo Falastiiniintu dalbadeen inay ku beddeshaan maxaabiis, ha yeeshee Golda Meir ayaa iska diiday waxa wadaxaajood ay Falastiiniinta la gasho. ujeedka fidaayiinta ma ahayn inay wax dilaan, laakiin waxay rabeen inay soo daayaan maxaabiis ku xiran gudaha Israa'iil, ha yeeshee waxaa ka soo baxay natiijo musiibo ah oo aan hore loo filanin. shiishiyahanada ciidanka Jarmalka ee garoonka ku sugnaa ayaa toogtay 2 ma ahan intii kale kooxda hubaysneed, ha yeeshee kooxda ayaa toogtay 9 ciyaaryahan ee Israa'iiliyiinta ee ugu afduubnaa helikobtarka iyagoo ku dilay bambooyin iyo qoryaha diraandurow dhaca. waa ay dileen dhammaan maxaabiistii, sidoo kalena inta badan kooxda ayaa la dilay marka laga reebo 2 la qabtay. maskaxdii ka dambeysay weerarka ayaa ku dhintay howlgalka. eedda ugu horreysay ee ku lug lahaansho ee howlgalkii 72 waxaa soo bandhigtay majallad Jarmal ah bilayar kadib markii weerarku dhacay. majalladda ayaa farta ku fiiqday Ali Xasan Salaama inuu ahaa hogaamiyaha kooxda iyo qorshayaha weerarka. goor dambe warbaahinta Israa'iil iyo ila ka tirsan sirdoonka Israa'iil ayaa sii wada sheegashooyinka noocan ah, iyagoo sheegay inuu si shakhsi ah Ali Xasan Salaama mas'uul ugu yahay, isaguna uu abaabulay howlgalka Munich. waa arrin aan anigu shaki ka qabo maxaa yeelay intaan ogahay isagu qayb waa ka ahaa, laakiin ma ahayn qorshayaha. waxa uu caawiyay qaabab kala duwan sida tababarada, laakiin ma ahayn midka qorsheeyay. waxaan rabnaa inaan soo afjarno howlgalka iyo colaadda oo aan u dhaqaaqno dhanka nabadda. dhacdada Munich ayaa si weyn uga xanaajiyay Israa'iil iyo Golda Meir, waxayna argoosi u qaadeen weerarka oo ay ugu magac dareen weerarkii carada Ilaahay. mid ka mid ah kii ugu horreeyay howlgalladu waxa uu ahaa mid ay ugu magac dareen howlgalka guuga dhalinyarada, kaas oo xubno ka tirsan Mossad ay doon ku gaareen Lubnaan si ay u weeraraan hogaamiyaashii PLO ee ku sugnaa magaalooyinka Beirut iyo Sayda. ma aysan gaari karin Abu Xasan maxaa yeelay gurigiisa waxaa ku yaallay aagga safaaradaha, waxaana waardiye u ahayd ku dhowaad 16 nin. waxay weerareen xabiiska Carafaad, laakiin howlgalka ayaa ka fashilmay oo waa ay qaldameen. Hani Ali Xasan waxa uu ahaa dariskayga, waxaan arkay isagoo gaarigiisa galaya, gaari nuuciisu Maraykan yahay oo 5 nin gudihiisa ku jirta ayaa daba socday. waxaan isiriyay waardiyaashiisa waayey, laakiin waxay ahaayeen kuwo loo diray inay khaarijiyaan. nasiib wanaag waxa uu baxay nus saac ka hor howlgalka, way ka tageen waxayna aadeen kooxda kale ee u socotay khaarijinta Maxamed Yuusuf Al-Najjar iyo Kamaal Naasir. Mossad waxay awooday in 16 Falastiiniin ay ku dushiiro. dabcan howlgalkii ugu sarreeyay wuxuu ahaa howlgalkii guuga dhalinyarada, kaas oo ahaa inay awoodaan markii ay Beirut imaadaan oo 3 sargaal oo sarsare oo Falastiiniin ah ku dilaan guryahooda. waxba uma duunaan sida toorri wadnaha loogu muday ururka PLO. Ali Xasan Salaama ayaa sanadihii 60meedii iyo 70meedii u dallacay darajooyinka ugu sarreeya ururka Fatah, isagoo noqday ninka ugu aaminka badan yahay Yasir Carafaad. Ali waxaa kaloo lagu xasuustaa inuu aasaasay ururka Sebtembartii Madoobeed oo 11 ciyaaryahan oo Israa'iiliin ah ku dishay tuulada ciyaaraha Olombikada ee magaalada Munich sanadkii 1972. tan ayaa gelisay liiska dilka Israa'iil. Mossad ayaa bishii Abriil sanadkii 1973 Beirut ku weerartay ururka PLO. weerarkan ayay Mossad ku dileen 3 sargaal oo ka tirsan PLO, laakiin waxay u suuragali weysay inay helaan Salaama ama Carafaad. Mossad ayaa sii waday ugaarsiga Salaama inta lagu jirana waxay ku dhaceen qaladkii ugu weynaa bishii Juulaay sanadkii 1973, qaladkaas oo lagu magac daray dhacdadii Lillehammer. gafafka Mossad ee waqtiga waxaa ka mid ahaa inay kabalyeeri asalkiisa kasoo jeeda Morocco oo ka shaqaynayay maqaayad ku taalla magaalada Lillehammer ku qaldeen Ali Xasan Salaama, sidaasna ay ku dileen. magaciisu waxa uu ahaa Axmed Boushekhi, laakiin warbaahinta u qaadatay Boushiki oo aan wax shaqo ah ku lahayn arrimaha halganka Falastiiniyiinta. dhacdadaas waxay u keentay Israa'iil dhibaato diblomaasiyadeed.
howlgalka lagu dilay Bushiki waxaa loola dan lahaa Abu Xasan Salaama sababo la xiriira howlgalla uu ka fuliyay meelo kala duwan oo Yurub ah. Waxa uu dhisay shabakado caalami ah, unugyo qarsoon ayuu ku lahaa Talyaaniga, Faransiiska iyo Britain. Xataa Israa'iiliinta qaar ayaa la shaqayn jiray. Israa'iil ay aad uga xumaatay sida uu u dhexgalay jaaliyadaha Yuhuudda. waxaa la isweydiinaa sababta dhacdada Lillehammer oo ahayd bartamii 700 kadib ay Israa'iil u sugtay ilaa 79 si ay u dejiso Salaama. taas waxaa loo aanay karaa sabab siyaasadeed. waqtigaas waxay xilligii ra'iisul wasaare ahaa Begin. kadib dhacdadii Lillehammer, Israa'iil si madax bannaan ugama shaqayn karin Yurub sida waayihii hore. sanado badan Israa'iil cabsi weyn kama qaban Falastiiniyiinta, laakiin dhacdadii Sebtembartii Midoobay ayaa keentay isbeddel weyn sababo la xiriira arrimaha waaweyn ee qarsoodiga ay ku gadaanaa weerarka, sida yaa fududeeyey, yaa maalgeliyey, yaa fuliyey, yaa hubka u geeyey. taas ayaa keentay in Sebtembartii Midoobeed ay aragtida dadweynaha Israa'iil ku noqoto mid ugu halista badan. Cali Xasan Salaama oo ahaa hoggaanka kooxdan Quds ayaa su'aalo badan ku gudahnaayeen. waxa uu ahaa nuuc shacbiyad badan oo aan la saadaali karin. waxaa si weyn uga go'nayd inuu fuliyo dalalka iyo howlgallada kale, haddana aad ayuu ugu raaxaysan jiray nolosha haweenka iyo tamashlaha. waxa uu Israa'iil ku ahaa dhibaato xooggan. Falastiiniinta kale ee halgan kula jirtay aad ayuu uga doonaa. si fasiix ayuu ugu hadli jiray luqado badan oo Yurub lagaga hadlo. waxa uu ahaa nin muuqaal ahaan qurxoon, si joogto ah ugu safri jiray Yurub. dadka aad ayay ula dhacsanayeen, kaliya ma ahan bariga dhexe ee xataa Yurub ayaa aad looga jeclaa. Cali Xasan Salaama si weyn ayaa loo bartay oo u shaaca baxay, xataa ragga naqsheeya dharka ee Yurub ayaa yaqaanay. waxa uu jeclaa inuu ku labiso dharka reer galbeedka, ma ahayn nin Carab ah oo dhaqanka Carbeed leh, kuna labisan cimaamad qorina sita. waxa uu ahaa nin reer caways oo si weyn ugu dhex muuqday cawaysyada Beirut. waxa uu guursaday gabadha quruxda adduunka qaaday. guurkiisa Georgina Rizqi ma ahayn mid iska dhacay. waxa uu guursaday gabadha qaaday quruxda dunida sanadkii 1971. waana gabadha keliya ee ka timid Carab ee weligeed qaaday koobka quruxda adduunka. waxa uu yaqaanay si dadka loo soo jiito. waxa uu ahaa shakhsiyadda nuuca dadka aadka u muuqda oo lahaa dhammaan astaamaha hogaamiye. waxa uu ahaa nin adagta in la fahmo. dhinac haddii laga eego, nin xarago badan oo lagu tilmaami karo reer Baashaal. dhinaca kale, hawl fuliye majeexjeexa ah oo u dagaalamaya qadiyadda reer Falastiin. dhankaas haddii laga eego, wuxuu khatar ku ahaa Israa'iil. waxa uu la xiriiri karay reer Yurub iyo galbeedka dhan, isagoo qadiyadda Falastiiniinta u matalaya si ka duwan madaxdii hore iyo kuwa waqtigaasba. marka ay timaado arrimo militari iyo siyaasad, wuxuu ahaa nin qaangaar ah laakiin carruur ah marka ay timaado noloshiisa gaarka ah. wuxuu aad ugu walnaa cawaysyada iyo baashaalka, sidoo kale wuxuu jeclaa karateega iyo dabaasha. subax kasta wuxuu aadi jiray naadiga ciyaaraha, legdanka iyo fardafuulka waxay ahaayeen kuwo muhiim u ah. waxa uu jeclaa dhegeysiga heesaha Nat King Cole iyo Frank Sinatra. sidoo kale wuxuu jeclaa sida aan anigaba u jeclahay Elvis Presley. walaalkii Cali Xasan iyo walaashii isku fasal ayay ahaayeen dugsigii sare. wuxuu dhihi jiray maalmo badan ayay muraajaco u fadhiyaan, anigana saacado yar ayaan muraajaceynayaa, haddana shineemaan aadaya, hadhowna bundo ka fiican ayaan keensanayaa. dadku aad ayay u jeclaayeen, isaguna wuxuu ahaa nin soo jiidasho badan. dadku waxay jeclaayeen inay la macaamilaan, isla markaana wuxuu ahaa nin ku adag arrimaha qaar. amniga ayaa u baahan in lagu adkaado waxyaabaha qaar. PLO ayaa Jordan ka soo guurtay oo degtay Lubnaan, halkaas oo Yaasir Carafaad saldhig u noqotay. si tartiib ah ayay PLO ugu xoogaysteen koonfurta dalka Lubnaan iyo bariga Beirut, taasi oo keeni kartay inay qalqal geliso nabadgelyada aan cagaha badan ku taagnin ee Lubnaan. Carafaad waxa uu taageero ka haystay dhaqdhaqaaqa wadaniga ee Lubnaan ee hogaaminayay Kamaal Jumblatt. ha yeeshee Carafaad ayaa doonayay inuu xiriir la yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee Lubnaan. Carafaad ayaa taas ku muujiyey kadib markii uu la kulmay Pierre Gemayel oo ah hogaamiyaha xisbiga masiixiga ee Kataib oo saldhigeedu u ahaa bariga Beirut. qof kasta waa uu xasuusta waxa uu sameeyey Yaasir Carafaad sanadkii 1973 kadib janaaso uu kala qaybgalay Pierre Gemayel. Carafaad ayaa raacay gaarigii Karim Baqraduuni, wuxuuna sheegay inuu doonayo inuu soo booqdo xaafadda Ashrafiya.
waxa uu ii sheegay inuu rabo inuu boqdo ashrafiya. waxaan ku yidhi abu camaar aan marka hore marna biyaar jamaal. wuxuu yidhi maya anigaa raba inaan arko ashrafiya. carafaad waxa uu saarnaa gaarigii yara oo ahaa nooca Renault isagoo oo xiran cimaamadiisa. waxa uu furay daaqada gaariga isagoo bilaabay inuu dadka salaamo. dadka qaar ayaa u istaagay si ay u salaamaan halka kuwa qaarna ay layaab ku noqotay. waxa uu rabay inuu muujiyo inuusan cidna loolan kula jirin sidoo kalena uusan rabin in cid loolan la gasho. cid kastana uu rabo inay dhankiisa soo maraan oo garab istaagaan. tusaale Kamaal Jumblatt oo kale waxa uu watay mashruuc ah in dowladda la bedelo. carafaad dan kama lahayn dowladda bedelkeedii inaan la bedelin. waxa uu rabay keliya taageero iyo inuu koonfurta Lubnaan noqoto saldhig ciidan, xarun warbaahineed iyo mid siyaasadeed ee caalamka la xiriiran. wax kasta oo carafaad uu sii saadalay ayaa cagsigeeda la arkay waxaana qarxay dagaal sukeeye. ururka PLO ayaa waddooyinka Beirut dagaal kula galay maleeshiyaadka masiixiga ee ururka Kataib taasoo keentay in magaalada Beirut loo qaybiyo bari iyo galbeed. tirada maleeshiyaadka ayaa sii korortay iyadoo la dilay boqolaal shacab ah. ciidanka Lubnaan ayaa kala qaybsamay waxaana garabka xooggan ay la wareegeen dhammaan shaqooyinka dowladda. dagaalka ayaa si lama filaan ah waxa uu Cali Xasan Salaam u siiyey door muhiim ah. doorkaas oo Cali Xasan Salaam ka yimid bartanka cadowga PLO ee gudaha iyo dibaddaba. ugu dambayna u surugeliyay wadahadal uu Cali Xasan Salaam la galo Mareykanka. waxa uu ka bilaabay inuu la xiriiro Bashiir Jamaal oo ah wiilka hogaamiyaha xisbiga masiixiga Kataib ee Biyaar Jamaal. waxa uu Abu Xasan Salaam la xiriiray Bashiir Jamaal isagoo u sheegay in carafaad uu xil saaray qabanqaabinta kulan dhexmara Kamaal Jumblatt hogaamiyaha xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniga Lubnaan iyo hoggaanka xisbiga masiixiga ee Kataib. ururka PLO ayaa doonayay inay Kamaal Jumblatt oo ka wakiilaya dhaqdhaqaaqa wadaniga Lubnaan iyo Jamaal oo ka wakiilaya xisbiga masiixiga Kataib ay isla qaataan mowqif midaysan oo ay ku diidayaan faragelinta militariga Suuriya ee Lubnaan. go'aankaas oo si weyn uga soo horjeeday siyaasadda xisbiga Kataib. Bashiir Jamaal wuxuu ka soo horjeeday faragelinta Suuriya ee Lubnaan. Bashiir Jamaal ayaa aqbalay kulanka waxayna si qarsoodi ah ugu kulmeen guriga Muxsin Daluul. Bashiir Jamaal iyo Kamaal Jumblatt ayaa ku kulmay gurigeyga. Abu Xasan Salaam oo aan galbinin Bashiir Jamaal ma soo gali karin galbeedka Beirut inta uu dagaalku socday. Cali Xasan Salaam ayaa gaari uga soo qaaday Bashiir Jamaal aaga madaxafka. gabi ahaan inta uu kulanku socday Abu Xasan Salaam ayaa xaadir ahaa. Cali Xasan Salaam ayaa si fudud ula jaan qaadi karay kooxda u janjarta dhanka midig wuxuuna dhexdooda ka noqday in la jecel yahay. kadib markii uu ka qayb galay xafladda uu qabtay Dani Shamoun waxa uu la kulmi jiray Bashiir Jamaal ka sokow cadaawadda siyaasadeed ee u dhaxaysa labada dhinac. si aad ayay u jeclaayeen ilaa Kamaal Shamoun oo madaxweyne Lubnaan ka noqday uu yiraahdo waa wiilkii saddexda Cali Xasan Salaam. intii uu socday dagaalka sokeeye ee Lubnaan Cali Xasan Salaam ayaa la kulmay Bashiir Jamaal si ay ugu wada hadlaan amniga. intii ay sheekadu u socotay Bashiir Jamaal ayaa Salaam ku yiri waddankaaga aad ayuu qurux badan yahay. Cali Xasan waxba kama dhihin laakiin wuxuu carafaad u sheegay in Bashiir Jamaal oo Israa'iil tagay. waxa uu dhex galay aagga Israa'iil muhiimka u ahaa ee bariga Lubnaan. aaggaas waxa uu ahaa xisbiga masiixiga ee Kataib. qofna uma dhowaan karin aaggaas laakiin Abu Xasan si fudud ayuu ku dhex galay. waa u yaqaanay askarta Israa'iiliyiinta ee ka shaqaynayay bariga Beirut. waqtigaas Cali Xasan ayaa xiriiradii uu la lahaa qaar ka mid ah hoggaanada xisbiga Kataib waxa uga faa'iidaystay inuu xiriir la furo Mareykanka. markii aan kulannay waxaa nagu soo dhacday inaan ka hadalno sidaan u samayn lahayn tallaabooyin amni inta aan siyaasad ka hadli lahayn. in siyaasad laga hadlo waxay ahayd mamnuuc laakiin amniga marnaba mamnuuc ma ahayn. waxaan isku raacnay inaan heshiis u bandhigno safiirka Mareykanka. safaradu waxay ku taala galbeedka Beirut oo Falastiiniintu ay gacanta ku hayeen. waxaan isku raacnay inaan u bandhigno in carafaad uu diyaar u yahay in Salaam loo xil saaro in xeyndaab amni laga sameeyo safaaradda Mareykanka taas oo aan si toos ah xiriir ula lahayn safaaradda laakiin ilaalinaysa kana hortagaysa weerar kasta oo ka dhan ah Mareykanka. safiirka Mareykanka ayaa i weydiiyey maxay tahay danta Falastiiniinta ugu jirta arrintan. waxaan ku iri dantooda ayaa ku jirta in ay xiriir la yeeshaan xataa haddii uu xiriirkaas uusan gaarsiin heer siyaasadeed. waxaan safiirka u sheegay in Falastiiniinta qaar ay qabaan inaan dowladda Falastiin la heli karin iyadoo aanu Mareykanku ogolaan.
safiirka ayaa igu yidhi waan kugu soo noqon doonaa. markii labaad ee aan kulannay arrinta sama aanan qaadin, laakiin wuxuu i weydiiyey inaan weli arko Falastiiniyiinta. waxaanan ku idhi waan arkaa. wuxuu si cad iigu yidhi samaynta xidaab amni waa fikrad fiican, maxaa yeelay waxay qabeen dhibaatooyin. waxaan weydiiyey inaan hore u sii wadi karno, waa uuna aqbalay. tani ayaa ahayd bilowga wadahadal u dhexeeya Cali Xasan Salaamah iyo sarkaalka hay'adda CIA ee fadhigiisu yahay Beirut, laguna magacaabi jiray Robert Ames. Ames ayaa ku hadli jiray luqadda Carabiga si fiican u yaqaanay gobolka. waxaa suuragal ahayd in xiriirka qarsoodiga ah ee Salaamah iyo Ames uu saameyn ku yeelan lahaa xiriirka waqtiga dheer ee Mareykanka, Israa'iil iyo dunida Carabta haddii labadooduba ay noolaan lahaayeen. marka la eego dhinaca Israa'iil, in CIA-du ay wadahadal la gasho in Israa'iil ay u aragto cadowgeeda koowaad, waxba kama doonin Mareykanka oo ogaaday in Israa'iil xiriir qarsoodi la leedahay Usaama bin Laden. waqtigaas Israa'iil waxay u arkaysay in Cali Xasan Salaamah uusan waxba ka doonin argagixisada Mareykanku ugu raadin badan yahay. haddii Mareykanku maqli lahaa arrintan, waxay u dhignaan lahayd khiyaanadii abid ugu weyneed ee Israa'iil ay ku samaysay. ha yeeshee Mareykanku waa uu sii waday wadahadalkii Falastiiniyiinta. waxaan ku qanacsanahay inaan hayno dhabihii saxda ah ee aan ku gaari lahayn casriga dahabiga ee nabadda, barwaaqada iyo walaalnimada. waxaan dhihi karnaa qorshaha madaxweyne Ronald Reagan laga soo bilaabo 80-meydii waa markii ugu horreysay ee Mareykanka uu si dhab ah u garwaaqsaday xuquuqda dadka reer Falastiin. qorshahani lama qorin lamana daabaceen haddii uusan saameeyeen Robert Ames oo isaguna uu sii saameeyey Cali Xasan Salaamah. markii ay Israa'iiliintu ogaadeen inuu socdo wadahadalkan, si dhaqso ah ayay uga hortageen oo u soo afjareen. waana xasuustaa maalintii walaalkii la qarajiyey. waxay ahayd 22 Janaayo, maalintii dhalashada gabadheeda. waxa uu rabay inuu yimaado. gabadheeda aabaheed ayaa keenay kaamiro. waxaan rabnay inaan ku duubno dabaaldegga qoyska. waan sugaynay. Erika Maria Chambers, magac beenaadka haweeneyda British ah oo dekeneeda guri ka soo horjeeda guriga Cali Xasan, waxay iska dhigtay inay tahay gabar jecel sawirada gacanta oo baranaysa. boorka ay wax ku sawiraysa waxay dhigan jirtay barandada gurigeeda. muhiimaddeedu waxay ahayd inay la socoto oo weydayso Cali Xasan. waxay awoodday inay si dhow ula socoto, waxayna baratay dhaqamadiisa iyadoo kor ka daawan jirtay qayb ka mid ah waddooyinka. waxay dusha ka daawanaysay gurigiisa iyo waddooyinka soo gala. waxay si cad u arki kartay marka uu ka baxayo gurigiisa. howlgalka waxaa la qorsheynayay muddo aad u dheer. Israa'iil waxay muddo dheer isku dayeysay inay ogaato halka uu amiirka Casa ugu nool yahay Lubnaan iyo dalalka kale ee ku noolaaday marar kala duwan si ay u disho. ugu dambeyntii waxay xog ka heleen Falastiini ku nool Beirut oo ka mid ah ururada Falastiiniyiinta. waxa uu soo gudbiyey xog ku saabsan nolosha Cali ee Beirut. Israa'iil ayaa bilayar gudahood waxa ay samaysay qorshe ku aadan sida loo helayo loona qaarajin karo Cali Xasan Salaamah. waxaan ku booqday gurigiisa oo ku yaalay Sakaid Al-Jansiir. wuxuu codkiisa weynaa igu yidhi maxaa darno. waxaan u sheegay inaan ogaaday inay ku daba jiraan mar labaad qorshaha qaarajintiisana la dhamaystiray, dibna aan loo dhigi doonin. waxaan joognay barandada. wuxuuna i weydiiyey waxa uu samayn karo. waxaan ku idhi bedel waddada aad maalin kasta marto, wax kastana samee, maxaa yeelay kuma ilaalin karno. wuxuu igu yidhi ima murugeynayso, mana uusan kala jeclayn. ugu dambeyntii waxa uu maray waddada oo mar kasta mari jiray. guriga wuxuu ka tegi jiray 10 subaxnimo. waxaan ku nidhi guriga hal waqti ha ka tegin maalin kasta. waxa uu yidhi marka go'aanka dilka qofka la qaato, waqtigii goobta muhiim maahan. wuxuu yidhi diyaar ayaan u ahay inaan iska caabiyo haddii la isoo weeraro, mana i qaban karaan. way muuqatay inay la socdaan ilaalo badan haddii la isku dayo in waddada dhexdeeda lagu weeraro. haddii xataa lagu guulaysto, waxaa ka dhalan karay in la qabto ragga weerarka fuliyey, taas oo fashil ahaan lahayd. waxay go'aansaday inay adeegsadaan qarax weyn, kaas oo haleeli kara isagoo gaarigiisa saaran, dilini kara isaga iyo waardiyihiisa, taasoo micnaheedu yahay inay waardiyihiisa la ogolaan inay fal celin sameeyaan. Bashiir Jamail aad ayuu uga walwalsanaa, wuxuuna uga digay shirqoolka lagu qaarajinayo Cali Xasan. waxa ay soo wacay Bashiir Jamail. waxay weydiiyeen inaan arko Abu Xasan. waxaan ku yidhi si maalinla ayaan u arkaa. waxa uu igu yidhi u sheeg inuu ka taxadiro naftiisa, gurigiisana uu uga guro xiro. waxaan gartay in Bashiir Jamail wax dareemay ama uu wax ka maqlay Israa'iiliyiinta. maalintaas waxaan warqad ku socotay Cali Xasan ka helay Bashiir Jamail.
waxa uu uga digay inuu jiro shirqool lagu qaarajinayo maanta. Waxa uu kula taliyay inuu beddelo waddada uu maalin kasta maro. Dadka la jooga ma aysan rabin inay kiciyaan. Waxay sugeen inuu bannaanka aado si ay warqadda u siiyaan. Warqaddii ayuu ku furay gaariga dhexdiisa. Waa uu akhrinayay marka uu qaraxu dhacay. Dhammaan waardiyihiisa madaxa ayay ka go'een. Halka Calina isha uu fir yar ka galay, kaas oo uu dhintay markii isbitaalka la geeyey. Waxa aan maqlay qarax xilli aan gabadhayda Dima u labisayay. Maba is dhihin walaalkaa marnaba. Weligay ma iloobay maalintaas. Hooyaday iyo xaaska Cali way ilmeynayeen. Waan istaagay anigoo fiirinaya oon hadlayn. Waxay aamusiyey qaraacanka. Weligay isma dhihin walaalka ayaa dami loo dhigayaa oo la dilayaa. Waa mid aan dhici karin. Dad badan ayaa ka jirtay shakhsiyadda Cali Xasan Salaama. Qaar ayaa qabay in Israa'iil ay shaqaalaysay si ay u dhex galo PLO. Kuwo kale ayaa qabay in PLO ay adeegsanaysay si uu u dhex galo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka. Waxaan is leeyahay Mossad waxyaabo badan ayaa ku riixay inay Cali Xasan dilaan kadib fashilkii Lillehammer. Waxa uu ahaa xisaab aan xirnayn oo ay rabeen inay hal mar xiraan. Tan labaad waxay rumaysnaayeen inuu ku lug lahaa Munich haddii ay runtahay haddii kaleba. Ilaa maanta ayay qabaan in Cali Xasan uu ka dambeeyey weerarkii Munich. Midda saddexaad inuu xiriir la yeeshay Mareykanka waxayna ka dhigneyd haddii aan soo xigto jaajuus Mossad oo ka qayb qaatay howlgalka sida indhaha oo faraha nagala geliyey. Israa'iil waxay rabtay inay sare ugu qaado magaca hay'addeeda sirdoonka dilka shakhsi dadka dhan hadalhayeen. Waxay rabeen inay muujiyaan awoodda dunida oo idil. Kahor dilkiisii waxay xoogga ku saareen Cali Xasan dhanka warbaahinta. Israa'iiliinta ayaa sheekooyin taxane ah ka qoray amiirkii casaa. Waxay ku daabaceen wargeysyadooda. Taxanahaas ayaa dhammaaday toddobaad ka hor qaarijintiisii. Cali Xasan Salaama waxaa la dilay 22 Janaayo 1979. Robert Ames ayaa ku dhintay weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Beirut sanadkii 1983. 63 qof ayaa ku dhimatay weerarka safaaradda Mareykanka ee Beirut oo ay ku jiraan 17 u dhashay Mareykanka. Dadka qaar ayaa aaminsan in haddii Salaama uu noolaan lahaa uu xogta weerarka u gudbin lahaa Mareykanka, weerarkan uu fashilin lahaa. Mustaqbalka haddii Ames iyo Salaama noolaan lahaayeen, waxay dad badan qabaan in xiriirka 40 sano ee Mareykanka iyo Bariga Dhexe uu qaadi lahaa waddo kale, isbeddelna uu ku dhici lahaa.